daawadayaal ku soo dhawow barnaamijka ila hadal qaybta labaad maanta kadis ma samaynaynaa labada tartamayaal waxaa la kala dhahaa maxamed iyo garaad labadiina ku soo dhawow barnaamijkan kadiska waxay ka kooban tahay 4 qaybood 4 wareegyo wareegta koowaad aynu bilaabaynaa waxa weeyaan af Soomaali sarbeeb leh su'aasha koowaad xaaladan waa bariga dhexe maxay la macno tahay in qofka og yahay jawaabta farta taagnow haye waxa weeyaan marka qofku dhaha xaaladda waa bariga dhexe inta waxa weeyaan dhibaato haysato waa sax in jawaab si fiican badu keentay su'aasha labaad lug bay aastay haddii lagu dhaho maxay la macno tahay waxa weeyaan way guursatay waa sax weyn su'aasha saddexaad wuu dhalaalayaa maxay la macno tahay wuu dhalaalayaa waxay la macno tahay dibaddu ka yim beenta ma aha su'aasha afraad gaarigayga ma aha maxay la macno tahay kama helin noocan waa sax waa igu jeeq mataqaana jawaabta ها ان igu jiq xaaladda qofka marka jiq ku tahay ku maaragtay ku cakiran tahay baa la yiraahdaa wuxuusan haysan mobilka haddii laga hadloona waxa ma ka sheegi karaan asaga sii wada jawaabta igu celi mar labaad haddii oo mobil laga hadlayo maxay noqonaysaa jawaabtu waxay noqonaysaa haddii mobil laga hadlayo shaqo kuma yeelan karto mobil shaqo kuma yeelan karto maxay sababtu u tahayna horta su'aashu waa igu jiq soo maaha igu jiq macnaha waxa qofku haddii xaalad ku cakiran tahay bijiq ku tahay marka mobil sidii soo galayso macnaha taa ma fahmin macnaha haddii jawaabtu ma haysaa si kale baan u aqaanaa marka loo eego macnaha mobilka waxba iguma jiraan beenta ma aha waa sax okay igu liq maxay la macno tahay warkaysi waa sax weyn waan tufay maxay la macno tahay waxa weeyaan waa nacay waa sax weyn sax okay haddaan ku dhaho bishan dhirtay saaran tahay maxay la macno tahay waxay la mid tahay bishan dhirtay saaran tahay haddii la yiraahdo maasha bishan wixii ka dambeeya ma garan kartaa anigu sarbeeb ku jiro hadalkaas marka adigu ma fasiri kartaa macnaha bishan dhir bay saaran tahay miya ha bishan dhir bay saaran tahay in bishan dhirtay saaran tahay camal shiid baan hay miya ها صح صح اوكي هذا كله غاري اعمل عدلا ايغا يال maxay la macno tahay waxay la macno noqon kartaa gaari meel cidla iga yaala qof gaari ka jabay gaariga meel cidla ka yaal ha laakiin sarbeeb ku jirta qof baa meel iga joogta meeshe guriga joogta معناها waxa weeyaan internet ayaa iga suga okay hadaan ku dhaho ajalka gedi maxaa weeye macnaha warkaysi camal may hadaatiin laba qofood isla sheegaysiin warkay igu dhur camal igu dhur ah ha maxaad ka wadaa akhbaar si camal maya in qof kale soo galayo marka maxay noqonaysaa marka ajilka geli geli
jawaabta maali keeni waxa weeyaan shirkadda bedel rufyaana yimid shit man maskaxdeeda ku jirtay okay dhib male ciyaalka xafadda qaabka ay ugu qurbaxaan gabdhaha qaar ka mid ah baan idin sheegayaa micnahooduna ii sheeg okay maxaa waaye in qoftan number 5 ay ka dheeshaa number 5 bay ka dheeshaa macnaheedu noqon kartaa qoftan aad iyo aad baa loo shukaansadaa maya waxa weeyaan mar haddii lagu dhaho number 5 bay ka dheeshaa macnaha difaac bay ka dheeshaa way adag tahay waa صح okay ciyaaryahankan goorma la soo wareegtay maxaa waaye macnaheedu waxa weeyaan marka la dhaho qof ciyaartooydan amal soo iibsatay goorma baratay waa صح waa صح okay haddaan ku dhaho qoftan referee waaye maxaa waaye waan garanayaa maxaa waxa weeyaan haddii lagu dhaho qoftan waa referee marba meel bay ordishaa camal waa rufyaanad camal صح belo waa wanaagsan waxaan aadinaa wareegta labaad meeqa fanaaniin oo lab ah ayaa sheegi kartaa wareegta labaad waxa weeyaan su'aalaha guud meeqa fanaaniin oo lab ah ayaa sheegi kartaa haddaad mid khaladid qof kale ayaa loo gudbinaya ama loo wareejinaya markii hore waxaad sheegtaa tirada imisaa taqaana waxaan qaanaa 12 adna waa badan yihiin fanaaniin badan oo gabdha waa aqaanaa laba aad iyo aad labo ah waan garanayaa lab ah laakiin meeqa xabo ayaa sheegi kartaa ilaa adiga 12 oo sheegi karaa hay adna ilaa iyo 13 14 way hay wad sheeg xasan al samatar juba أحمد موجة محمد موجة تباع عبد التهليل أي عبد هولن تضابط كوشين سديد كل سجال عبد القادر جبا حسن آدم سمنتر جامع يرى عبد هولن إلى دكور يهاي سيدو كله موجياش لو موجي أحمد موجي محمد موجي الله نحرسته سيدو كله عبد الناصر معلن عبد التهليل ninka la yiraahdo ii sheeg maanta walaalaha Sweden Fuad Umar sidoo kale waxaan kale ii dhiman la musta'an Abdulqaadir Jub waxa kale ii dhiman Abdi Holan oo sheegay sagaalka sanada okay waqti waa dhamaatay su'aal kale aan sameeynaa buurta caanka ah magaalada Erigaaba ku taalo gacanka cadmeed u dhow magaceed waxa la yiraahdaa Surat Shibris صح dalka Soomaaliya waxa maro laba webi oo kala ah webiga Juba iyo webiga Shabeelle waxayna ka yimaadaan dalka Ethiopia teeba ugu dheer labadaas waxa ugu dheer Shabeelle waa sax Shabeelle ugu dheer okay hal xiraale baan haya dhulka waxa u soo degin cirkna daar ku lahayn ee duula ii sheeg waxa la yiraahdaa dabaysha waxa la kibiri صح وسي فيها كل وبوت كوفي عت معناه محاوي كربوت كوفي عد وأيها مركو بودو ما هي ما هي ان معناه مثلا كربوت كوفي عد كوفي بنت ما دان كذا واي
daangada ma garanay guri dhowr niman isla degan Yeah. hal nin ka mid ah hadduu dhaho maanta caasho baan ahay muxuu ula jeedaa wuxuu la jeedaa maanta isagaa karinaya cunada gurigaasaa karinaya ku qoran waa sax waa si wanaagsan weeyaan yaa dhammaystiri karaa heesti xasan aadi samater haddaad diido hadalkayga habeen wacan nasiibkayga ilaa jumladeed gaaraysa ani ma garanayo si fiican aadna intaa bilowgaa sheegto waan ka garanaya lakiin dhammaadka dambe ma aqaan laftirkaygu ma sii wadaytahay okay dhib male wareega saddexaad aan aadaynaa waxaa weeyaan su-aalo luqadda soomaaliga ku saabsan xarafyada alfabeetiga soomaaliga oo laba laabma kala sheeg weliba si gaar ahaaneed sidoo kale waxay sitaa hal jumlad oo ay ku kulmaan sheeg kalmadna haddaad labadaas su-aalo si saxa ugu jawaabtay laba dhibic baad keentay waxaa ka mid a enta ka mid a na'da waxaa ka mid a ereyga ji ama ga soomaaliga lagu yidhaahdo waxaa ka mid a deyda oo diida saddexdaa erey aad bay u laba laabmaan soomaaliga markii loo fiirsho beenta maaha maxaa kale g iyo d iyo sidoo kale waxaa kaloo labalaami kara enton way labalaabanta waan sheegay saddexdaa ereyga afaraad oo labalaami karo ugu dhowaa elta waa la afartaasaan garanaya anigu imise taqaana shaqalada dhaadheer soo ha aadoo kale may waxaan sheegayaa in xarafyada laba laabmaya ma garanay okay waxaa weeyaan madnala garaad ba haddaad tidhaahdid waa ku jiraanba okay in jumladaas way isku kulmaan kulligoodba taasaa jawaabta okay un-ta maxaa soomaali ahaan loo yaqaana qaramada midoobay waa sax meeqa ereyo xarafka ka kaca ayaad sheegi kartaa haddaad mid khaldid qofka kale ayaa loo ga ka kaca ha kaalay laakiin imsa sheegi kartaa tiradii marka hore sheeg 6 haye adna ereyga ka kaca soo maaha mise ka bilowda ka bilowda waa isku mid okay sida kaalay ama kaalmo kale weyna tirada sheegtaa tirada yani 3 ilaa 6 meela iyo 7 oo ka bilowda toddoba xabo soo maaha okay ken kulligeen kow kaalmo hadday tahay 2 ama kalsooni 3 keligood u socod iyo kalkaal waa 5 kaamamka ama koofiyadaha waa 6 waa 7 waad keentay okay waa sax dhan xanagta intay ku taala dhagxan dhan xanag wuxuu ku yaalaa carabka dhammaadkiisa carabkaaga markuu dhammaanayo halkaa ugu dambaysa dhabxanaga la dhahaa halkaas ku yaala yani bal adiga si fiican u sheeg dhanxaniga inta ka yaala ha sax adiga wax kale baa sheeg dhammaadka carabka dhammaadka carabka kulaha meeqa magacyo oo lab ah oo aan luqada carabiga ka iman ayaa sheegi kartaa oo laba way badan yihiin sida 5 baan ku sheegi karaa 5 bay sheegtaa oo af carabi ka imaan magacyo caadiya oo aan luqada carabiga ka iman ha oo dumarka may lab nimanka ha sheegi karaa ilaa 8 haye sheeg geedi qurac geedi qurac geeljire
awdheere afar soomaa walan walle intaas miligo adagta waayahay jumlad waa carabi sentence ama phrase waa ingiriis soomaali ahaan maxaad dhihi lahayd sentence camal laakiin waxaa jira erey soomaali oo isla micnihi ah jamac maya jumlad sentence ama phrase waa ingiriis moogtahay soomaali ahaan erey baa jirto marka waa ereygee xiriiriye maya jumlo ma taqaani soo ma may ma garanayaan waa weer ama weed shit waxaan hadda ku sheegaya haddaad taqaani waxay yihiin farta taagnow hohob mareer gudha faruur hay waxaa sheegtay waa miro hohobta waxaa yidhaha miro sax waay sax furuurta waa miro waa sax miro casku waa miro waxaasoo dhan sheegtay beenta maaha sax waay okay waxaan aadinaa wareegta afraad waxaa weeyaan maahmaahyo garaadiyo maxamed weynay maahmaahyadan micnahoodu sheegaan qofka si sax ah uu jawaabo hal dhibic buu helayaa nin kuu digay kuma dilin waa nin kuu digay waa nin adiga maaragtay ku sheegay mataqaanaa macnaha inuusan waaba kuu digay macnaha kumuu dilin ilaa mar farisku ku siiyay alshan waa kuu digay haddii adiga iskala daasidna waa kumuu dilin asaga waa sax waa si fiican nimaa dhashay kuma dhalin nimaa dhahaa badanaa soomaalida nin geesiya ama nin fiican ninkiisa ma dhalo maya nimaa dhashay kuma dhalin macnaha waxaa weeye qofbaa adigu dhashay caadiya qofka aadan dhalinna ma aada dhalin macnaha waxaa weeye dee ilmahaaga awlaadaadi baa dhashay ma saas maha micnihii waxaa weeyaan hooyada mar kasta way kaa fikiraysaa marka maqanta waxaa isleedahay aawi wiilkaaga aadna saas hooyada ugama fikiraysid saasaa micnaha mukulaal mina keera joogto micyo libaax baa leedahay qof meeshiisi jooga deegaankiisa magaaladiisi uu ka adigaya camal waa sax haddaad ammaan rabto waa la dhintaa haddaad cay rabtana waa la oroosaa marka qofka uu dhinto soomaalida way ammaantaa hadduu xun yahay xataa hadduu xumaa markuu noolaa waa la ammaanaa haddii uu guursadana waa la caya intii ugu dambaysa sax maaha laakiin intii hore saxsaneed ma ogtahay marka nin xil qaaday eed qaad waa nin ammaano loo dhiibto ama wax loo dhiibay xil eed buu qaaday mar haddii maaragtay adiga wax lagu dhiibtay ama mas-uuliyad lagu saaray mas-uuliyaddaa ku saaran daraaddeed xilkaas eed baa qaaday nin xil qaaday nin eed qaaday maya micna dheeraadka ku jira sarbeeb baa ku jirtaa okay sarbeeb ahaan waxay noqon kartaa nin xil qaaday eed qaadiyey macnaha waxaanan adiga aadan awooddaada ahayn baa dusha iska saartay marka eeddii sida baad ku heshay taasi sarbeeb ku noqon kartaa eedis laakiin fasira saas maaha sheeg waxaweyaan ninka hadduu madaxweyne noqdo ama xukun dadka oo dhan ma wada qancin karo marka kolley eed unbuu iska qaaday eed baa dadka o dhan way iska eedeynayaan qaarkood waa si fiican af xumo wax kaama tarto nabadna way fogaysaa waxa weeyaan mar waa caytantay oo kale waa iska caytantay marka waa caytantay marka caydii waxna kuma tarin
oo waxba dadkii kamaadan qaadin dadkii kale waa cayday oo af xumaa samaysay adigiina waa istustay camal haa sax waa saxsan tahay 20 jir intuu geedku boodu talka booda okay qofka dhalinyarada intuu tala ka boodo buu maaragtay geed ka boodi karaa baa loola jeedaa marka yaraanta uu yaraa 20 sano uu jiro buu talada ka boodi karaa maadaama uu yahay dhalinyaro waa sax waa sidaas haa canjeelo si ay u kala sariso ayaa loo kala qaada waxaa laga wadaa horta waa laba lahjood way leedahay canjeero iyo dadka Soomaalida qaarna waxay yiraahdaan ood sidoo kala koreysa loo kala qaadaa canjeerana waa oran kartaa hadaa rabtid labada kaarto adeegsan kartaa waka laakiin fasiraadka kaarawa fasiraadda xaaji sidoo kala koreysa loo kala qaadaa macnaha loo jeedaa sida xaaji isugu dhagan tahay baa loo kala miisaankeeda loo kala qaadaa baa loola jeedaa marka lagu yiraahdo canjeero sidoo koreyso baa loo kala qaadaa ama ood sidoo u kala koreysa loo kala qaadaa xaajadan ama sheekada mutaqaan barnaamijka marka yaal sidoo u kala horeeya loo kala hormariyaa ama loo kala qaadaa waa sax waa saxsantahay haa luuq marow laazim laamiga imaanaya qofkii isqarqariya oo isqarqariya wuxuu imaanaya publica marka dambe dadka meelshu banaanku imaana waa sax beenta ma dooni laba nuqudeel leh way jabtaa Soomaalida aad ugu maamada ergaas macnaha waxa weeye hadda barnaamij ku jirnaa kala kaba soo qaad sida kan ku jirnaa kale hadii loo dhiibo dhowr iyo 20 qof laba qof oo kale ama sheeko kale inta ku soo darsamaan waxay si wadaan laba naaqood way jabayaan barnaamijku ma soconayso daal suwayga loo leeyahay doon laba naaqood ma wado hal darawal doonta sida ku wada ku socota badweynti laakiin hadii dad badan laga adeejiyo ama saddex qof oo kale ama dad badan waxay noqonaysaa in maaragtay wixii dantaan laga lahaa in si hagaagin وصح صنطاي ان meeqa mahmahyo erga rag kaca ayaa sheegi kartaa nin geed ka boodi ma suug nin ma aha rag bashige erga rag ha marka in meeqa sheegi kartaa markii hore tirada sheeg ilaa 3 xaf meelas hay-adna أنا وحكو شيكرا أفر بنكو شيكيا أوكي إن واي هاي أدنى شيك مرك رق معناها محربتا أفر ما موضوع كسابسن الرق كسابسن مس إرق الرأك كعة ما إرق الرأك كعة إرق الرأك كعة سوما ولا وقال الناس ويدي هاي شيك الرق ربي رق تلوده ان تاش حيكون بلولا ربي لكن الرق بعرفته ما تغني اوكي ديب ماله واي هيدي هذا قبل كوشينا سو قارني اوكي محمد هذيك واحد كانت هاي تدور دبعوت garaad adiga waxaad keentay 20 dhibcood waxaan ku leeyahay hambalyo hadiyadna waan idin haya fadlan thank you qofka badiyayna fadlan aad ayaad ugu mahadsantihiin ka qaybgalkiina waad ku mahadsantihiin barnaamijka intaas uu ku eg yahay en barnaamijkan waxay noo sahlay Netsom iyo Horseed Media anigu Bob waa idin wada salaamayaa waynu mar kale